عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ولا سكوي ماذي هذا ريني رومنا هاي إلا حلي إلا شل إلا ما تعب عبسيا نودار هرت إلهي أنا أمان سدو إن هل كان وحوق تعسين يا إهلكي إقرابت ذي إيكيريودين سدح دي دمر إيش الله نيروبي ميدت كذا للصوري جاي أمد الصوماليات جارهان أمد كنا نيروبي إن سلام كذب النيوز كا وحلاقي عبادك قار إن الشيء كذا ولي إسفان سنين أما إسن مقلين هرت النيوز كوحن كم مقلي أياربا إن دي شيء يو وحيابك كلته أني أعربه إن دي شيء فيديو جا وحو مهم كي هاي قفل البصومالي أو دك المجال هذا كينيا أما قفت قانون كينيا دك هذا وشر وشر كراي because وحوا هو very مهم واي عبس نسوي وجه هذا واي إلهي أنا أمان سدو أنا قدل كان وحكونا قحوتي وحكونا ضد ومهارتنا بتقولي صادونني هذا نبتقولي كوين إنه والله واقف إلهي وهرت دل كان هنوقت ليه دل وناكسن إن مدكوا بعد هرت وحليري إن ماما يلو قبض أيا لتلي ماما ذا قارب حملة لابد قبض إذا هذا الشيء ما دلين متكمل أيه الشيء إن مركو واحد عدي وحليري ماما ذا سيدا نيسك أو قبر كهلا فاميلي جاس إن قبر رير كاس قبلي دينتي رير كودا يكهلايان قبر كمدا وحلا وري سنة واحد هذا maamada waxay soo aaday dhakhtar oo skinka ama maqaarka oo ku yaalo PBS Mall ay soo aaday lahayd waxa u maleynayaa meeshay degan yihiin lama sheegin laakiin aan si kale waxa u maqlay in section 3 degan yihiin laakiin ma hubi ama isli meelaha adi kulli to meel ka dheer ma aha okay marka maamada waxa la dhakhtarka ka soo aaday dan wal gabdhaha waxa jirta gabar iyada dhashay iyo mid kale to kaazin yihiin ilma adeermiya ilma abtimiya ilma idamiya ma garanayo then marka maamadii way soo wacayeen alla gabdhaha markii dambe ilaa ay gaartay abaara 5 saac oo waqti dambe ay noqotay markii dambe gabdhii waxay go'aansadeen gabdhaha mid kale waxay jiraan sanadkooda midna waxay jirtaa 12 sano jir aad u yarta midna 22 sano jir ay jirtaa halahay then gabdhii waxay sameeyeen way soo bixeen alla yiri siisi kaamirada guriga markii uu war dambeeyay ayuu gaari sii raacay ayaa dadkaas ugu war dambeysay laakiin markii dambe waxay maqleen ama newska ama social media ka arkeen in meedad la soo dhigay Parkland iyo Park Road miya iyo Gonga miya maqan kadibna meedadkii markii la arkay si xul gabdhihii ayay ahaayeen maamada wali waxa la dhigay magaalada meel ka baxsan Machakos la dhaxo ayay meedkeeda la dhigaa la dhahay wali maamada gadaalaha meedkeeda laga helay okay hadaba horta la shaki fi waxa shaki ku jirin waxa waaye in dhacdada dadka dhacdada xun oo saana geystay inay yihiin hal group sababtaas u leeyahay horta dilku isku si ayuu ahaay hadii la yiraahdo jirdilka jirkooda la googooy xubnaha qaar maqnaaya liiri waa la kufsadaa liiri adi waxyaabo badan saddex meelood kala dheer ha dhigaan laakiin dadka oo falkaas geysta shaki kuma jiro inay hal dad yihiin okay hadaba ani marka qiyaas ahaanteeda marka fikiray hal meel ay cilad ka iman kartaa maamada Allah u naxariistay dhankeeda waxa laga yaabaa maadaama maamo ahayd in gaariga ay soo raacday 90% gaarigaas inuu ayada dhibaato u geystay sababtaas u leeyahay waxa waaye PBS Mall waa meel Soomaaliyeed meel oo qof asagu saa u soo taagan laga afduuba karo horta ma aha laakiin waxa laga yaabaa 60% gaari banaanka taagnaa oo taxi ah in iska raacday 40 waxa laga yaabaa in gaari oo Bolt ama online ka dalbatay in ay raacday sababta ay leeyahay 60% sababta oo leeyahay gaari caadi ah raacday oo taxi banaanka iska taagnaa oo door tuug ahay sababta wax oo qofkaas oo information aan laga hay karo ma laha laakiin hadii uu qofkan taxiilaha oo Boltiga uu yahay badanaa information kooda waa la hayaa inkastoo mararka qaar ay dhici karto gaariga dalbanaysa gaariga number plate kiisa iyo asaga isma laha ma fahanteen wuxuu ka soo wici karaa oo kaleeto inuu ka soo waco kale sometimes app ka dhaxdiis inuu ka soo waco taasna waa dhici kartaa sababta marka labadaas taxi midkood doonaba ha aadee amaamada inuu qaaday ayuu dhumiyay oo kas imaagu u dhumiyay wadadii ay garanaysa ahaynoo marsiiyay waa sida inay ila tahay sababtaas u leeyahay gabdhaha waxa la maamadu waa soo socdaa dhiisay ilaa markii dambe gabdhii markay soo baxeen waxa laga yaabaa in ay maamadii isla hadleen ay dhahdo waa dhunay kadibna ninka taksiga oo u tilmaamay maybe meesha ay joogaan kadibna gabdhihii taksiga meeshii markay uga degteen in ay taksiga kale raaceen kadibna oo ama meeshii ay markaas munaasabka ahayd oo loo baahnaa la geeyay in la geeyo oo dadka ninkaas ugu diyaarsanaa sababta waxaan aaminsanahay
qof ma jiro raacayo taxi gaari niman kala sii saareen ma jiro maamada iyo ninkaas darwalka kaligood inay israaceen laakiin meel oo dad ugu diyaarsanaayeen inuu geeyay may fahanteen ilaa hadda xogta Kenya ma jirto dadka falka geystay qof soo qabatay ama yani waliba ku raad jiraan lama helin ma dhigi kari laakiin aniga sida aaminsanahay oo yani maskaxdeyda markaa ka fikiray maamada yaa dhibaatada u geysan karo gabdhaha gaariga soo qaaday oo maamada ku soo raadiyay gaarigaas wuxuu eegyaa inuu waxba ogeyn sababtaas maxaan u dhahayaa ma wada waafaqi karaan maamada gaariga soo qaaday inuu gaarinta u soo diro waqtiga nasiibkaas oo meesha ku helo ma dhici karto gabdho waxa laga yaabaa inay gaari online ka dalbadeen inay gaari caadi iska raaceen waa laga yaabaa laakiin muhiimadda ani boqolkiiba 90 u siiyay inuu ninka darawalka ahay oo maamada waday oo dhahay waa dhunnay oo maamada wada qaldan ka bixiyay oo ayadana oo gabdhihii markay soo raadiyeen asaga oo hagay oo yiri meesha saa joognaa markay meesha yimaadeen gabdhihii sidii lagu qabsaday mi fahanteen waa sidaas dhigi karo taas marka aan ka gudubno ilaahay ha naxariisto siday noqotona waxaan rajaynaynaa in la soo saaro oo waa lagu raad jiraa okay mid kala raba point kala raba inaan ka hadlo hadda ka hor qisadeen dhacdadan oo kale maray dhici jirtay ayaan dhaxdaas oo sas u dheereen laakiin ma ahayn wax oo la isabtoobtay naagaha oo jirkooda ka ganacsado aan nimanka Nigerian wuxuu ku sameeyeen jireen dhowr mar sameeyeen in ay dileen ay jarjareen ay kadibna qashinka ku rideen markay hooshooda ay ka bagteen meesha lacagta ka sii lahaayeen naagay bixilaayeen way jarjareen ilaa Kenya ay soo rogtay hoteelada in uu qofka haduu qof kale soo booqanayo in laga dhigo waxyaabaha detailskiisa sharcigiisa meeshu degan yahay lambarkiisa waxaas si loo aqoonsado qofkii uu u tagay iyo qofkii uu ka maxaa la raraa meesha tagay ma fahanteen oo mudnuucaas la saaray xitaa guryaha faaninjarada la saaray Nigerian-kan waa dadka ugu halista badan ee wadankan cabsi waa dabaqay dadka tuurayaan naaga dhilooyinka way soo wadanayaan waxa waaye lacag ay haystaan then markay soo wataan saas ayaga u jajarayaan ayaan dhaxdaas ma fahanteen dhowr dhacday laakiin tan ma ahayn tan waa mowduuc kaleeto mid kaleeto waxa rabaa inaan ka hadlo anaga Soomaaliyeena xil xun la soconaa xil xun ama socon maxmee marka qaar waxay ka imaadaan isliye ka imaadaan waxay imaadayaan Kilmani iyo Westland Parkland waa meelaha badan ay soo aadaan dhalinyaradeenna hadaba dhalinyaro hadda kadib inaa waxaan rajeynaa group isku soo raacdeen waa mid koowaad mid labaad taksiyaashiin Soomaalida iska raac inkastoo taksiyaasha Soomaalida ayagana waxay ku xun yihiin lacagtii inta la yihiin lacagtii waxay ka dhigayaan qaali that's why dadka u qaadanayaan polity marka walaalayaal wiilasha Soomaalida taksiyaashan adikana lacagta dadka ka raqiisiya taksigaas waxa laga yaabaa in meel oo 300 ama 200 ku aadaysa wuxuu dhaayaan kuna ku aadaysa ma fahanteen gabdho habeenkii ha soo bixinina ma dhacdo inay soo baxdo group wiilal isku jiro soo qaata hadii dhacdo gaariga kaliga inaad taxi fay soo raacdi habeen Soomaalida adduunka shirka wax laga siiyaa fahmi waa gaari taxi oo shir laga koray caalamkii iyo leen ku arkay gadaala la fadhiistaa marka taxi soo raacdi gadaala laga fadhiistaa special kursiga asaga ku aadana la fadhiistaa sababtaas isku dhaay in case haduu intuu looga ka oo jailog gaari kaaga xirto uu ka loo gareysto uu kula fakado ceejile dhab ku si baawurka idin la gadoobo labadiin inta kaliga lagu gogoylahay ama lagu kufsalahay ma fahanti because asaga uu istaajinaa naftiisa marab inuu dilmo qorsagaaro leh kula qabale kursiga nin oo qorsagaaro oo inta lagu haayo xoog ma ahan taas moqt macnaha baawur ma sii wadi kar moqt ma inuu stop gareeya uu ku qasban yahay ma fahanti kaligiisna waxa waaye markaas wax ma tiri karo is ilaaliya haddii anaga dowladda aan ka heli wayna joogaan ma ganacsanayno ma shaqaysanayno sababtay tahay amnigeena naga sugnaba dowladdana waxaan Come dulmi wado dadka dhiba aan la dooran doonayno dagaalooga dhiga dadka ku dawaba wax ku qaada doonayno dagaalooga dhiga dadka ku dawaba wax ku qaada doonayno intaba doonayno dagaalka doonayno dulmiga doonayno
maamada dhakhtar bay aaday intii dhakhtarkii maamada ku maqnayd waa la waayay 7 saac habeenimo nin darawala soo wacay wuxuu yiri kaalay hooyadii la dega markii gabdhihii soo degteen waashmaanka dhay xaga u socotiin hooyadana gaari ka soo dejinaynaa gabadhii yareeda gaariga hor gashay gabadhii weyn markay dabcad inay soo noqoto xooga gaariga lagu saaray waa wax maaragtay aad u xun waay way ku dhiiradeen way sameeyeen waa in la helaa dadka waa in cadaalad loo helaa cadaalad waa in la helaa maalin hadda wadaa la samaysanaya gabdhaha jooga iskuulay waayo dugsilay oo madraso dhigana waxbay baranayaan dariiqa loo istaagaya bari wada furantay noqonaysaa haddii dawladdu hadda soo qaban dadkaas oo la dhihin maxay ahayd dadkii dambiga galay waa kan aan la dhihin ay haddana telefoonadii lacag ku qaadanayaan sida aan warku ku soo gaaray marka arrintan arrin aad u tiiraanya badan waay waxa laga xumaado waay hal qoys bay intaas ka baxday dhibaato weyn weeye ilmaha hooyadood la dilay ilmaha gabadheedii la dilay maamo kale gabadheedii la dilay waa dhibaato weyn ilmo wax baranayay ahaayeen ilmo mustaqbal ay ahaayeen mid ilmo yar bay ahaydba gabadha yarta marka dadkan waa inay cadaalad helaan rajaynayna dawladda dadkaas qaatuliinta inay soo qabataan rajaynayna waayo haddaan hadda la soo qaban kuwa kale sii samaynayaan dadka nooca dadka u jarjareen hore dadka u jarjari jireen haddaysan waxa ay dadka hore u jarjari jirin maba samayn lahayn hadda ma garatay haddii hadda aysan arrintan kow ma aha hal gacan baa dadka baf siisay gacantan jag qoorta jag madaxa jag intee laga qoraa xoolo miqalaya waa wuxuush weeye waxaan wadanka in laga qabto weeye dawladdu inay qabato weeye waa in meeshay joogaan meel walba si kaamira ku xiran gaarigan guriga imaaday wadada dhan kaamira ku xiran waa la arkayaa waa la soo qaban karaa waa la yaqaanaa dawladdu ha soo qabato cadaalad ha samayso dadkan xaqooda ha soo dhiciso haddii kale wada furanta dadka ku furan bay noqonayaane community-ga Soomaalida waa inuu hadlaa community-ga dawladda waa inuu ku hadlaa haddaan laga hadlin wax koon baa dhacaya oo indhaha laga qarsado indhaha laga laabto waa in wax laga qabtaa wabillahi tawfiiq magacayga Shacni Maxamed Muuse waaye bismillaahir rahmaanir rahiim awalan allah rahmaanka ashhadu an la ilaaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu awalan allah yaa mahadle marka xigana inta meesha isugu timid marka labaad waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa hal qoys oo meesha musiibadan meesha ka dhacday waa hal qoys waa gabar iyo habar yarteed waa gabadheedii waa hal famil waa wax weeye wax tiiraanyo weeye wax weeye murugo weeye waa wax laga xumaado weeye dad meesha wax ku bartay waaye dad wadanka ku dhashay waaye dad 60 sano waaye maaragtay ilaa hadda wax loo soo qabtay ma hayno waxaan inaga sugaynaa in cadaalad ay helaan oo dadkii dulmigaas sameeyay oo waxyaalahaas dhibaatada weyn u geystay ayagoo gabdho yaryar dumar adduunka kalaha maaragtay mustaqbal maanta soo gabagabeeyay oo soo afjaray noloshoodii oo ilaa hadda aan la haynin oo maaragtay maanta wax laga xumaado aad u tiiraayo badan oo murugo badan in dadkaas la soo qabto ayaan rajaynaynaa dawladdu waa inay gacan ka geysataa community-gu waa inuu gacan ka geystaa Yuusuf Xaaji waa inuu ka hadlaa waa in uu Aadan Barre Ducaale ka hadlaa dadkaas waa in la keenaa meel walba kaamira ku xiran gabdhahan waa gabdho habar yar iyo Soomaali Maxamed ee digniina idin soo diraya aroonkeer aniga qabiilka tahay aniga magacaas ay muhiima maadaama aniga magacaas la ii dilaayo ma fahanti dadkan kaniisadahoodii la iibsaday masaajida laga dhisay suuq caalami ah ayaa laga gatay dhulalkii dhanha laga la wareegay businesska laga la wareegay way masiirsan yihiin way noo careysan yihiin 6 bilood ugu dambeysay comment aad u foolxuno hateful arkay oo Kenyaanka dadka ah ay soo qorayaan hadda action ay u bedeleen inayna afduubtaan oo ina dilaan qofkaaga haduu ka maqan yahay oo telefonkiisa inta laga soo waco lagu dhaho qofkaaga oo xanuunsan yahay meel hebel ugu imaa waxa ugu tagin sida gabdhaha ku dhacday oo hooyadooda inta la afduubta gabdhihii leeyr hooyadin soo doonta ee gabdhihina la jarjaray is ilaaliya habeen madow ha bixin gaarigaaga gaari inta lagu horgooyaa laga degsanaya dhiigeena baneesteen Soomaaliya isku badna 48 saacadood kadib waxa soo taraya xogaha ka imaanaya qoyska ay musiibada ku dhacday lagu leeyahay magaalada Nairobi labada gabdhood iyo hooyadood waxa la baahiyay saaka muuqaalkii ugu dambeeyay marka ay guriga ka bixiyeen ayaga oo guriga ka raacaya taxi kamerada ayaa qabatay sida la sheegay oo muuqaalkooda ugu dambeeyay sidoo kale waxa la baahiyay gabdhaha mid kamid ah oo reerka ugu weynida marka ugu horeysay la afduubay iyo gabdhaha habaryarta mid kamid ah waa midna dhashay sawirkeeda oo xijaaban dadku social media Soomaalida joogto waxyaabo kala duwan ayay isla dhexmarayaan waxyaabo kala duwan ay qorayaan wax hadda ugu muhiimsan oo Soomaalida anagu doorka ugu muhiimsan isdii lahaa inay qaataan ay tahay waxa weeye
in Soomaalidu wadankan Kenya oo wadan sharci ka jiro waana wadan ay Soomaalidu ku leedahay power waa wadan Soomaalidu ay ku leedahay hanti waa wadan Soomaalidu awood ay ku leedahay arrintaas sidii loo dabagali lahaa ama maartay si cadaalad ku heli lahayn laga shaqeeyo mid ugu muhiimsan oo Soomaalidu ay ku soo jeediyaan indhahooda oo maartay indhaha halkii maartay lagu eego muhiim ah maanta inaan waxyaabo kala duwan sheegno iyo muhiim ah maanta inaan ka sheekino waxa la yiri iyo waxa la sameeyay waxa ugu wanaagsan waa in reerkaasi ay cadaalad helaan gabdhahaas Soomaaliyeed daayirta ah ee u qalmi adduunka inay noolaadaan sida xaqdarrada lagu laayay Soomaalidu waxay dhahdaa baraay intay ka maqan tahay guriga walaalkaaga ku jirta arrimaha noocan oo kala ah Soomaalida iska kaashanin oo aan meel looga soo wada jeensanin oo aan waqti badan iyo dadaal badan la gelinin way soo laalaaban doonaan